Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan ciwaankan haddii ilaah yiraahdo aan uga hadlaynaa iyo muuqaalkan guud ahaanba cudurka loo yaqaano bawasiirka afka cilmigana lagu yiraahdo hemorrhoids ama piles. Cudurka bawasiirka sida Soomaalidu fakar ahaan ka haysataa ma sax baa ma nabar ka soo baxaa maxaa la yiraahdaa tubada saxarada mise waa wax ka duwan. Waxaan halkan insha Allah ku qaada dhigi doonaa waxa loo yaqaano hemorrhoidska, waxyaalaha keena, calaamadaha lagu garto, siyaalaha looga hortago iyo haddii uu ku haleelo daaweynta ugu habboon ee aad raadsan karta iyo halka aad ka heli karto. Haddii ilaah yiraahdo waxaan marka hore ku bilaabeynaa in la qeexo muxuu yahay bawasiirku. Bawasiirku ama hemorrhoidska ama pileska waxa la yiraahdo waa barar ama daacsanaan ku timaada xididada ku hareeraysan qaybta hoose ee tubada saxarada ee loo yaqaano rectumka iyo meesha saxarada ka soo baxdo ee loo yaqaano anuska. Bararkaasi marka uu yimaado qofku wuxuu u dareemayaa siyaalo kala duwan iyadoo oo ay ku xiran tahay hadba nooca uu yahay ilaa laba nooca jirto mar uu gudaha ku jiro iyo mar uu banaanka soo jiro. Marka uu gudaha ku jiro waxaa loo yaqaanaa internal hemorrhoids. Marka uu banaanka soo jirana waxaa loo yaqaanaa external hemorrhoids. Waa isla fiirin doonaa labada nooc. Midka koowaad ee loo yaqaano internal hemorrhoids waxaa barar ka soo baxaya qaybta gudaha ee tubada saxarada. Bararkaasi qofku wuxuu dareemayaa markii uu saxaroonayo. Marka ma lahan calaamado badan sida kan banaanka oo sida xanuun oo kaleeto badanaa ma lahan marka laga reebo markii uu intuu soo barar banaanka u soo baxo. Midkaas gudaha ka soo baxayahi wuxuu leeyahay barar uu qofka dareemayo xilliga saxarada. Waxaa kaleeto oo yeelan karaa dhiig ka yimaada haddii uu dilaaco. Sidoo kaleeto midka external hemorrhoidska loo yaqaano amaba ka soo baxa wareegga tubada saxarada afkeeda ah. Waxaa asiga uga duwan yahay kii horeeto wuxuu leeyahay xanuun badan. Wuxuu sidoo kaleeto leeyahay qaybta saxarada meesha kasoo baxaysa ku aadan oo ku bararta. Wuxuu kala siman yahay inuu dhiig imaan karo. Si guud marka laga hadlayo bawasiirka waxaa la yiraahdaa dadka dunida ku nool boqolkiiba 50 noloshooda xilli ka mid ah ayay la kulmaan calaamadaha lagu garto cudurkan ee bawasiirka. Sidoo kale waxaa la yiraahdaa afarta qofood oo waaweyn saddex ka mid ah waqti noloshooda ka mid ah waa ay isku arkaan calaamadaha bawasiirka. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la fahmaa waxay tahay bawasiirku waa cudur halis ah oo aan daawo lahayn amaba naftaada halis gelin kara. Waa cudur treatable ah la daaweyn karo easy ah kaliya u baahan qofka inuu raadsado daaweynta ugu habboon iyo inuu garto meesha ugu habboon ee uu ka raadsan karo. Haddii aan ka hadalno maxaa la yiraahdaa maxaa keeni kara cudurkan see ku yimaadaa. Waxaa keeni kara dhowr arrimood haddii aan mid mid usoo qabanno ay ugu horeyso calool fadhiga ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo constipationka. Calool fadhiga ama constipationku waa halis caafimaad oo xoog leh waxaana lala xiriirin karaa cudurro fara badan. Haddii aan si qaas ah uga hadalno maxaa ka dhexeeya calool fadhiga iyo bawasiirka. Qofka markii uu cuno cunadaas waa la dheefshiidaa. Marka la dheefshiido wixii loo baahan yahay waa laga dhuuqaa dib ayay caloosha u qaadataa iyadoo mindhicirrada yaryarka ah ee laga dhuuqaayo. Kadibna wixii aan loo baahnayn waxaa loo soo gudbiyaa mindhicirrada waaweyn ee loo yaqaano colonka. Halkaas oo maxaa la yiraahdaa kadibna banaanka loo saaro qashin ahaan. Inta processkaas qashin saarka aan la gaarin oo ay ku jiraan mindhicirrada waaweyn cunooyinkii maxaa la yiraahdaa aan cunno wixii qashinka ahaa biyaa la socdo oo ku jiro. So biyahaas tartiib tartiib ayaa looga dhuuqaa. Marka mar allaala markii qofka maxaa la yiraahdaa biyihii saaid looga dhuuqo qashinkii ku jiray colonka ama mindhicirrada waaweyn ee saxaro ahaan in loo saaro la rabay saxaradu waa adkaanaysaa. Maadaama marka ay adkaatay markay soo marayso tubadan saxarada waxay cadaadis saaraysaa maadaama ay wax adag tahay
darbigii. Darbigana waxaa ka buuxo oo ku hareeraysan xidido. Xididadaas markii ay riixdo xididadii dhanka laga riixayo maahe dhanka kaleeto maadaama uu dhiig ka jiro way ka bararayaan. Markaas darteed waxaa imaanaya bawasiirka saas uu ku imaanaya. Sidaas darteed mid ka mid ah waxyaalaha ugu badan ee keena in qofku uu cudurkan ku dhaco waa constipation-ka ama calool fadhiga. Waxaa kaleeto muhiim ah oo asigana keeni karo waxa loo yaqaano heavy lifting-ka in wax culus uu qofka qaado. Wax culus oo weliba maxaa la yiraahdaa ka tan badan asiga awoodiisa inuu qaado. Qaaditaankaas waxaas culus uu qaadayo waxay badinaysaa waxa loo yaqaano intra-abdominal pressure-ka amaba cadaadiska iyo dakhdiga ka jiro gudaha caloosheena. Pressure-kaas oo batay ayaa wuxuu ciriirinayaa xididadii veins-ka la dhahayo ee dhiigga kor u waday soo celinaya. Sidaas darteed ayay xididadii dhiigga ku ceshoomayaan iyagana u bararayaan oo u keeni karaan cudurkan hemorrhoid. 3 waxaa keeni kara uurka, tan waxay u gooni u tahay haweenka. Marka hooyada uurka leh khaasatanna bilooyinka dambe ee cunuga uu aad u korayo ee uu soo weynaado ee Soomaalida ay u taqaano hooyadu waa xaamilo. Xilligaasi cunuga maadaama uu cuslaaday wuxuu pressure saarayaa isla xididadii hadda aan ka hadlaynay ee constipation-ka markuu yimaado culayska la saaray amaba maxaa la yirahdaa intra-abdominal pressure-ka oo asna badinaa haddii si kale aan u dhahno. Taas iyadana waa lala xiriiriyaa waa ayna keeni kartaa. Waxaa kale oo muhiim ah oo asigana keeni kara oo ay ahayd inaan ku darno markaan ka hadlayno constipation-ka waxa loo yaqaano inuu qofku isriixo. Isriixitaanku wuxuu yimaadaa qofka markay calooshiisu adag tahay ama saxaradiisu ay adkaato oo caloosha ay fadhiso. Markaas oo qofku isku dayayo inuu si xoog ah saxaradii isaga soo saaro. Riixitaankaas qofka isriixayo iyaduna waxay keenaysaa inuu yimaado cadaadis fuulayo xididadan kuna keenayo inay bararaan oo dacsamaan ama ay noqdaan cudurkan loo yaqaano hemorrhoid-ka. Ugu dambays waxaa sitaa lamid ah asigana muhiim ah inaan isdul taagno cayilka. Cayilku kaliya maahan macnaheedu inuu keeno hemorrhoid, laakiin cayilku waa halis caafimaad oo lala xiriiriyo cudurro badan oo ka halis badan cudurka maanta aan ka hadlayno ee hemorrhoid-ka. Oo ay ugu muhiimsan tahay dhiig karka, oo ugu muhiimsan yahay sokorowga, oo ugu muhiimsan yahay maxaa la yirahdaa cudurrada wadnaha ku dhaco khaasatan cudurrada xididada wadnaha xira. Oo ay ka mid tahay cudurrada faaliga, oo uu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa cudurrada kelyaha fariisiya. Waxaasoo idil waxaa lala xiriiriyaa qofka oo cayila. Cayilka xad dhaafka ah Soomaalida kuma badno, laakiin cayil oo idil uma fiicna caafimaadkaada. Markaan intaas uga tagno waxyaalaha suuragalka ay tahay in cudurkan ay keenaan, waxaan bal isdul taagaynaa oon mid mid uga hadlaynaa bawasiirka labadiisa nooc mid kasto iyo maxaa la yirahdaa waxyaalaha u khaaska ah. Waxaan irahnaa midka gudaha ka soo baxo wuxuu leeyahay barar, wuxuu leeyahay dhiig laakiin xanuun ma lahan. Midka qaybta saxarada meeshay ka soo baxeed wareeggeeda ka soo baxo waxaa loo yaqaanaa hadaan external hemorrhoid ama waa midka banaanka ka soo baxo. Kaas waxaa lagu yaqaanaa aan dhahnay meeshoo bararta, waxaa lagu yaqaanaa aan dhahnay dhiig yimaada, xanuun. Waxaa jirto marmarka qaarkood oo midkaas banaanka ka soo baxayo oo ku samaysmayo thrombus. Marka uu ku samaysmayo thrombus waxaa la yirahdaa ama clot ama xinjir ku samaysmayso. Xinjirtaas waxay keenaysaa marka in xanuunka uu zaa'id noqdo. Maxaa la yiraahdaa kaliya xanuun ma ahane in meesha ay bararto, in meesha caabuq ka dhasho iyo in meesha uu ku samaysmo kuus adag inuu ku samaysmo oo aad u adag. Maxaa la yiraahdaa marka that is waxaa waaye labada qaab ee external-ka iyo internal-ka ama kan gudaha iyo kan dibadda say u kala ekaanayaan. Okay, markay halkaas taagan tahay waxaa isweydiin mudan see looga hortagaa. Si aad uga hortagtahay waa in aad qaadataa cunooyinka diet fiber-ka ay ku badan tahay. Fiber-ku waa qayb muhiim ah oo cuntooyinkeena ka mid ah, khaasatan cuntooyinka ay ku jiraan digirta, galleyda, masagada, qamadiga iyo waxyaalaha laga sameeyo. Sidoo kaleeto waxaa soo gelaya khudradda iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan oo iyagana laga helo nooc fiber ah. Waxay muhiim u tahay fiber-kaas in maxaa la yiraahdaa saxaradeenu aysan adkaanin oo uusan calool fadhi nagu dhicin. Jirkeennana uu si fiican uga faa'iidaysto intii uu u baahan yahay inta kale qashinka ahna si sahlan jirka isaga soo saaro. Haddii uu diet fiber-kaas kugu yaraado waxaa imaanaya constipation ama calool fadhi taasna waxay keeni kartaa
halista aad bawasiirka ugu jirto inay siyaado. Waxaa kaloo muhiim ah qofka inuu biyo fara badan cabo. Waxaa loogu talagalay qofka maalintii marka la dhahayo maalintii waxaa laga wadaa 24 saac inuu cabo ilaa 3 litir oo biyo ah, taasoo ka caawinayso biyahaas faraha badan oo cabayo in ay wax badan ka tarto caafimaadka kelyihiisa, inay ka hortagto cudurro fara badan oo uu ka mid yahay midka maanta aan ka hadlayno. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah qofka in uusan noqonin immobile. Dhaqdhaqaaq la'aanta, fadhiga faraha badan leh, jiifka faraha badan leh waxay keeni karaan cudurro fara badan oo ka dhalan karo oo kan uu ka mid yahay. Sidaas darteed qofka waxaa looga baahan yahay exercise inuu sameeyo. Exercise-ku kaliya muhiim uma ahan ka hortagga cudurkan, wuxuu muhiim u yahay caafimaadka jirkaaga oo idil. Qofka waxaa loogu talagalay maalintii in 15 daqiiqo ilaa iyo 30 daqiiqo inuu sameeyo exercise ama wax lamid ah. Qasab ma ahan inaad wax culus qaaddo, qasab ma aha inaad maxaa la yirahdaa wax badan sameyso, laakiin waa in jirkaaga uu dhididaa oo dhaqaaq aad sameysaa, energy-ga aad qaadatay qayb ka mid ahna aad gubtaa. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah si aad uga hortagtid cudurkan loo yaqaano hemorrhoid-ka, waa in aadan sugin inta caloosha si daran lagaaga qabanayo. Markii aad dareento inaad musqul u baahan tahay, waa inaad si dhaqso ah u aadaa. Waayo mar kasta oo aad shaqadaada kusii mashquusho, fadhigaaga iska sii wadato iyo sheekadaada, mar kasta oo saxarada biyihi laga sii dhuuqo oo ay sii adkaato, taasoo keenaysa calool fadhiga inuu kugu siyaado. Marka intaas uga tagna qaababka looga hortagi karo, maxaa xala qofka haddii uu ku dhaco? Haddii qofka uu ku dhaco, waa kow inaad ogaataa cudurkan maahan cudur halis ah, daaweyntiisuna waa sahlan tahay. Waxaa u baahan tahay inaad goob caafimaad tagto oo aad isbaarto. Ogowna in dhiig uu ka yimaado qaybta dambe ee tubbada saxarada amaba ay kusoo bararto keliya macnaheeda ma ahan inuu cudurka bawasirka ku hayo. Waxyaalo fara badan ayaa keeni kara oo qaarkood halis yihiin, qaarkoodna ay sahlan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaa ku qasban tahay inaad mar waliba raadsato talo caafimaad, inaad dhakhtar u tagto. Si khaas ah waxaa hawshan iska leh oo qaabilsan dhakhtarka qalliinka guud general surgery. Waa inaad qaybtaas tagtaa oo aad raadsataa daaweyn iyo talooyin caafimaad oo kugu filan. Waa sahlan yahay. Waxaa la yiraahdaa waxaa loo kala qaybiyaa stageyo iyo maraaxilo uu maro cudurkan. Marka marxaladaha koowaad, labaad ilaa xataa qaab ka mid ah saddexaadka daawooyin ayaa lagu xallin karaa. Laakiin qayb ka mid ah saddexaadka, heerka digriiga saddexaadka markuu soo gaaro iyo afaraadka waxay u bahnaanayaan qalliin ayay u bahnaanayaan. Marka annaka xoogga ma aana saarin mana saareyno inaan ka hadalno noocyadaas markii uu kala marayo ilaa 4 heer ah, waayo waxba badan uma tarayso bulshada. Waxa muhiimka ah waa inaan baranaa qaabka cudurka looga hortago, calaamadaha uu leeyahay, iyo waxa kaa anfacayo in aad ku ogaatid maxaa la yiraahdaa ii sheeg markaa isku aragtid qaabka aad dhakhtarka ugu aadaysid. Ciwaankeenana maanta intaasaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.